ay noqonin wax la isbedbedelo 5 sanadood bay dimuqraadiyadda qofka maskaxdiisu xamili kartaa baa leeyahay madaxweynaha la doortay ama ninka xildhibaanka la doortay inuu xamilo shantaa wixii ka badan haddii aan la isku raacin oo aan markaa loogu celinin dimuqraadiyaddu ma qaadi karto maskaxda bani aadamka aan qaadi karin marka mahmaa yar baan soo qaadanayaa nin baa beri dabeecad xumaayoo turub maqaaxi yaroo lagu ciyaari jiray imaaraadka uu joognay ayaa habeen walba uu dagaalamaa habeenkii dambe miiskii looga kala tago wax la fadhiistay uu waayay keligii baa turubkii la hor dhigay inamadii kalena miisaskii kale iska sharaxdeen oo nin waliba miis baa afar iyo shan oo dhalinyaradii ku kaftantay ninkii baa markii dambe nisaaweego markaasuu yidhi alele waa looga kala tegey marka nimanka baarlamanka ah ee 15 sanadood fadhiya dimuqraadiyaddii maskaxda reer Soomaaliland ma xamilaysay ee shacabku oo way dhaaftay halkii dimuqraadiyaddu xamilaysay kalitalis iyo waxay kale gelaysaa marka tadegaankuna waa la mid doorashooyinka habsaamayaana ma yeelayaan shakhsi wax qolana wax ma yeelayaan xusbina wax ma yeelayaan wadanka oo dhan bay wax yeelayaan iyo populationka wadanka marka qolada baarlamanka ah iyo deegaanka waxaan leeyahay wariyaan kuraasada aad ku fadhidaan leedinka tagina xagga dimuqraadiyadda isku badiya مثلا إمك لبضن كوميشنير أي شيء سوء عليه أنا كله هدي أتكسر قاعدة وحويان وحي هيدني أوت كوان سحيان وهي أنت سو لبص النضاد صدق سنوات بين إمك سنة كسر حد بين دورش لا بعلينا هاي وحنا نادي يا دقوم حدنا غينا صدق ده قدومي حسبي ومدحوينا سومال لان كميدي هاي وكل شيء يجو إنا دورش دي سدي موقتي أي كجو أنت هاي oo iyagu halka meel isla dhigay meeshii cid hor taagan markaa in laga duwa oo baarlamanku koow ka yahay baarlamanka maanta Soomaaliland jira koow ka yahay ayaa iyaduna daruuriya iyagana waxaan ugu baaqaynaa sida dadweynaha Soomaaliland doonayo in ay yeelaan oo ay hirgeliyaan doorashada sida ay isugu raaceen saddexdii xusbi qaran gudoomiyayaashoodii waa inay iyaguna ku raacaan afkaasina waa afka murashaxiinta Soomaaliland oo dhan حتى gobolka Maredsheex maaha waa Soomaaliland oo dhan weeyii marka inta halka taagani saddexda xusbina way wada qabaan fikradda shacabka Soomaaliland uu qabaa marka haddii kaligood noqdaan iyaga looga tagi kuraasada oo dadkana moral xumo iyo balaayo kala ku dhici doonto wax kala dhici doona ilaahay way nagu keeninay doorashada waxa way haddii doorasho la waayo de jiritaankeeni ba halis kaliya doorashadana cid hor taagan waxa weey waa nimanka kuraasida fadhida ee qaadanaya mushahar aanay lahayn mushaharkii baarlamaankii labaad saddexaad mushaharkoodii bay qaadanayaan mushaharkooda waxaan ahayn oo buuqdaana ma jiro waxaan leeyahay adeerayaal mushaharaydan lahayn baa cunaysaan oo xaaraane oo arrintiina ku korinaysaan ka baxa meesha oo dalka habaabiinina xeerkii doorashada miiska soo dhiga haddii aad soo dhigi weydaan annagu waxaanu leenahay dadna taageersan dadkii berigii hore soo doortay inka idinma ogola miiskaanu idinku keeni doonaa hadda ka kici weydaan waa dulmanayaasha doorashadu waxay rabaan in ka dhacdo dalka doorasho cidda diidanna waa la garanayaa maanta waxaan leenahay walaalayaal muddo fara badan baa fadhidan kuraasta maanta sidaynu hubno madaxweynuhu ma diidana xisaabtuna ma diidana waa la isla waafaqsan yahay muhiimadda jirta waxa weeye nimanka xildhibaanada ah ee kuraasta ku ragaaday ee gafanaha ku noqday ee gabaarey ku noqday waxa la yaanu corona kale ma jira Soomaaliland corona waxa ku ah nimanka baarlamaanka fadhiya walaalayaal corona nagala soo baxa ayaan leenahay walaalayaal oo naga daaya oo ummadana waxay doonaysaa inuu isbedel dalka ka dhaco hanaankiis dimuqraadiyadeed iyo geedi socodkii doorashadu in sidii loogu talagalay u socotay ummadana rabtaa oo u helayeen waxa jirta rag 15 sanadood u taagnaa inay baarlamaanka Soomaaliland ka mid noqdaan ragga qaar waxa sheegay war dadkaygiiba oo waayo 15 sano ay sugayeen ayaanu kala daadanay waxaan leeyahay madaxreyaal dalka hanaanka iyo geedi socodka dimuqraadiyaddu hayr gasho muddo fara badan waxa la madaxweynaha hor taagan maanta waxa muuqatay oo ummadda reer Soomaaliland u sheegayna cid hor taagan inay baarlamaanka nimanka fadhiyata muddo dheer bay muran ku soo jirtay oo mar loo kordhiyo baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka oo ayaga laftigoodii waqtigoodii u dheeraaday mar la kala qaado madaxtooyada iyo arintii muxuu ahaa baarlamaanka oo isa saarahay haddana la ilaaha loo codayo la kala qaado marxalad dheer bay soo martay marxaladda ay soo martay marka la eego dimuqraadiyadda hanaankii ay u socotay 50 years marka la ilaaha cid baa fadhiyaysa oo
maalinba weji cusub bay keenayaan caqabad bay keenayaan cidda fadhida ayagoo legislative maxaa loo jeeda qodada sharci dejinta oo maalin walba ay shay dadka hor dhigaan ayaan daradeeda leedahay arrinta aan taabanaya waxa weeye xogaal hoosaan u ah maalintii dhaweyto 2 nin baa loo gudbiyey iyadoo la heshiiyey ayaa la yidhi 2 xubnood ansixiya si ay ugu biiraan 5 xubnood waxa dhacday inama ku jira gudaha oo ma odhanayo waa hebel oo isgaranayaa laakiin ayaa waxay leeyihiin haddii uuna dhaafo haddayna dhaafaan annaga ayaan jirin waa la garanaya ayagoo isgaranayaan maya annagaan dad ahayn haddii ay labadaayna na dhaafaan macnaheedu ma aha faysal ku xumeeya cabdiraxmaan ku xumeeya laakiin waxa ay doonayaan inay sii joogtaankoodu inuu sii raago marka taa diiwaangelinta si loo galo waxaan idin leenahay ansixiya ilmaada real muddo dheer baa fadhideen oo waxa afka la geleysaan waa teeramkii afraad baa afka la geleysaan 5 sannadood shantii kala idin bilaabmay carruurtii aad dhasheen jaamacadaha ay ka baxayaan haddii dimuqraadiyadda la waayo maxaa ka dambaynaya baa dadka aqoonta la isweydiiyaan haddii hannaankana waxu socdaan la waayo dee gacan baa la isula imanayaan oo fadhiya maysan anigu maalin horena waan igii sheegay waxaa iman doonta maalin laydka soo saaro haddii si nadiifa u ansixin weydaan dadka oo waddadeedii mari weydaan maalin baa iman doonta dhow in gacanta laydinkaga soo dhex qaban doono madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne adigana taariikhdaa kuu gasho ilnimadaasi marka aad hor dhigto mar labaad ee ay ansixiyaan haddii ilaahay khayr siiyo waan filaynaa inay ansixinayaani adigana mid baa kuu muhiima inaan marmarsiyo dambe dhicin taariikhdaa ku gashay inaad maxkamadda u guddiso oo mudane daahir riyaalo kaahin aad ku dayato inaan saami qaybsi cusub iyo muran cusub gobolladu aanay bilaabin eed maxkamadda u gudbiso ood ku dhiirado si ay taariikhda kugu dhashay ujeeddadayda maanta si raggii horeba uga hadlay waxa weeye arrintii doorashada ee muddada dheer la sugayey ee hadba meel joogtay maanta stagekay taagantay waxa weeye in xogaagii khilaafa ay ku jiray xisbiyada axsaabta iyo xukuumadda iyo madaxweynaha alxamdulilah meel wanaagsan ay dhigeen halkaa ay dhigeen waxaanu leenahay ha laga dhaqaaqo oo ha loo dhaqaaqo si u qabsoominay doorasho waddanka insha allah madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biix cabdi iyo 3 xisbi qaran aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin oo uga mahad celinaynaa siday u soo afjareen khilaafkii u dhaxeeyey ee muddada ragaadiyey hawshii doorashada ee inoo dhici lahayd waqtigan ka horeeya hadday maanta halkaa marayso waxaan leenahay 3 qodob marka koowaad waxaanu leenahay doorashadaasi ha qabsoonto madaxweyne iyo axsaaba gudoomiyaasha xisbiyada inkastay si fiican uga shaqaynayaan hadday meel wacan marinayaan waxaan leenahay ha qabsoonto oo halkaa ay soo gaadhsiiseen haraha uga socoto qodobka labaad waxaan leenahay weliba khaasatan madaxweyne halkan waxaa fadhiya 2 gole golaha guurtida iyo golaha baarlamaanka labada gole waxaynu ognahay inay labada goleba 2 golo qaran yihiin golaha guurtida wuxuu ahaa waqtigiisu 10 sano waxaanay fadhiyaan 30 sano golaha baarlamaanka 2005tii baa la doortay waxay iyaguna muddo dhaaf yihiin 15 sano sidaa daraaddeed halkaa waxaa ka muuqata madaxweyne labadaa goleba inuu waqtigoodii dhaafay mar labaad dhaafay mar saddexaad dhaafay maadaama ay halkaa marayso iyaga labadaa gole odhan mayno waxqabta oo sidaa yeela sababtoo waxaynu ognoo aragnaa inay yihiin gole uun keliya golayaal ku fikiraa qalinkoodu uu qoro keliya wixii kordhinta la odhan jiray kordhin mar iyo 2 iyo 3 ba iyo 4 iyo 5 ba waxay halkaa ku gaadhin kordhin iminkan waxay u fadhiyaan kordhin iyaga madaxweyne waxaan ku leenahay
go'aan cad ka qaado adiga hay-addii waddanka u sarraysaa adigaa madaxweyne qalinkii haya annagu waxaan nahay muwaadiniin reer somalilanah oo murashaxiina oo muddo dheer sugaysay xaqa waxaanu u leenay in nala doorto waxna dooranno sidaa maadaamay tahay iyaga ka sugi mayno labadaa gole inay wax noo dhammeeyaan adaanu madaxweyne ku leenahay wax qabo hawshaasi ha socoto haddii alla ka dhiga insha allah ujeeddadan meeshaan isugu imanay waxa weeyaan shacbiga jamhuuriyadda somalilan ku nool dibad iyo gudaba aan u sheegaynaa inaanu anagu diyaar nahay sidii ay doorasho waddankan ugu dhacdo aan u taagannahay oo aan ku taageersannahay go-aankii geesimino lahaa ee qaateen labada guddoomiye iyo madaxweynuhu labadii ninee sida bilaad sharciga ah lagu soo celiyey xeerkii ay qaadanayaan baarlamaanku waxay